Jaamaca weyn ee magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ka bilaabmay tartanka Quraanka Kariimka oo bil kasta oo Ramadaan laga qabtay magaalada Buuhoodle ayaa waxaa loo qabtay in ka badan 80 arday oo wax ka dhigata madrasadaha kala duwan ee magaalada Buuhoodle. Tartanka Quraanka Kariimka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Jumciyadda Al-Nuur oo ku taala magaalada Buuhoodle, waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo ka warbixiyay tartanka Quraanka ee ka furmay magaalada Buuhoodle Cabdixakiin Cabdilaahi Sheekh Aadan oo asagoo gudoomiyaha جمعية النور. جمعية حفظ الصوت والقاموسين وجمعية أبواب القرآن جمعية النور لخدمة القرآن الكريم. وحن يشق أيضا جديد من الهوية كوردانيستا قرآن الله سبحانه وتعالى. قارهان ولي الشقائق الأول وحي الأعضاء وحي صميان بشهر رمضان وصنة تستعين الصميسو waxaan ku leeyahay tartan quraan oo dhalinyarada lagu tartansiiyo jumhuriyaduna gobollo fara badan bay ka shaqaysaa gobolkeena Buuhoodle cayn iyo soo iyo sanad oo ay ka jirtaan waa jumhuriyad khayr badan leh oo wanaag badan leh maadaama shaqadeedu ay tahay quraanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wax la barto waxa ugu qaalisanaa weeyaan waxa weeyaan jumhuriyadina gobolkeena Buuhoodle waxaa maanta إن شاء الله تعالى كتب بالدوانا تفتح قرآنك وديارها إلى يدور الله كتب قرآن قرآنك الله سبحانه وتعالى بل يقرأ قرآنك كتب قرآن الإنسان وحنطرة الإيمان دلال محمد رسول صلى الله عليه وسلم يقول قرآنك عزوز يا ريسي من الغم وفتناك فتور تتعب للرضا ومستقبل كيني وما تستعرى مستقبل كيزور يعني أمتكين لجدائية سليقاي تتكوى وينيتي أدوك يصوم ولاك الليل ويصوم عليه تلك الدرجة وعن اللي يرى أقوم تنمي المطبع ولما كواس وحاول قرآن كلاهي بركة يعني هذا الكلاهي عن بارصة بركة إنسان إنسيدا الله موصى وفر الله صواب الله إلى أن تفتح صواب الله إلى أن نعصي وقرشك الله إلى أن سياسة الله ما هو أن صواب الله حقيقة مكان بعض الله صفقة أولا لساتك يديتا اللي يقرأ كمال أنت مجد ardayda kaalmaha koobaad gelaysa waa in xoog la saaro مثلا haddii ay 20 arday ay musaabaqada gasho way isugu yimaadaan saddex kaalmood waa laga fuliyo wixii la hayo barashadooda inaan ku dadaalo oo ah ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aakhira iyo adduun bayna ku barakaynayo marka waxay u baahannahay inaynu xamdi badan qalino oo Ilaahay raxmatiisa qalino alxamdulillah aynu badan inaan amalkeena ay ku daro goobtan deewaago taxiid iyo suuluwi inaan musaabaqada tartanka quraanka wax waxaan ku jiraa kor baynu u soconnaa dhiirigelinta qofwayba inaynu baranno diinta Ilaahay noo soo dejiyey iyo sunnihii nabigeena waa inagu waajib Maxamed Cali Bile, telefishinka qaranka Soomaaliya Buuhoodle.